degmada Xeraale ee waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa maalmahan dambe waxa aad isu soo taraya dadka laga helay caabuqa COVID-19 iyadoo shalay uu geeriyooday qofkii ugu dambeeyay caabuqa COVID-19 sidoo kalena dad badan ay la daadsan yihiin xanuunka safmareenka ah waxa intaasi dheer degmada Xeraale ma lahan xarun caafimaad oo lagu la tacaalo bukaanada xanuunsan sanadkii tagay ee 2020 bishii December ayuu gaab galay hospitaalka weyn ee degmada Xeraale oo gacanta ku haysa hay'adda Save the Children ilaa haatan ma jirto cid hospitaalka loo wareegtay gacan ku hayntiisa intaasi kadib waxa warbaahinta Sooyaal TV la hadlay gudoomiyaha degmada Xeraale Bashiir Daahir Yuusuf taliyaha booliiska degmada Xeraale gaashaan la waran leh Ibrahim Aadan isku duwaha wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka Galmudug ee degmada Xeraale Maxamed Cabdullaahi Maxamed iyo qaar ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada Xeraale iyagoona baaq u diray dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Galmudug iyo dhammaan wasaaradaha ku shaqada leh caafimaadka ogsoonahay inay dad 15 gaar ah dhinteen oo kii ugu dambeeyay shala dhintay waxaan ogsoonahay oo sheegaynaa inay dad dhowr iyo 20 oo hadeer daadsan yihiin ilaa 30 ilaa 25 waxa u dhaxeeya inay daadsan yihiin oo sakaraadka u kabaraadaya wasaaradda caafimaadka oo Galmudug waa joogtaa waxyaabo badan oo keentay baanan la soconaa haba yaraatee dadka degmada jooga waxa ay ku soo leexisay oo kale wasaaradda caafimaadka federaalka waxaan ka codsanaynaa dad badan inuu degmada Xeraale ku baabaahayo dad badan oo ku dhibaataysan yahay maadaama dadkaas dad Soomaaliyeed ay yihiin wasaaradaha ama oxygen ha noqoto ama qalab kale oo baaritaan ha noqoto ama wax looga hortaga ha noqoto waxaad moodaa inaysan dadkan Soomaali ahayn markii sida wasaaradda caafimaadku u dhaqmayso leego heer federaal iyo heer maamul goboleed wasaaradaha caafimaadku ha u gurmadeen dadkan baan leenahay dadka ay wax u qaybinayaan wasaaradda Galmudug bay ka mid yihiin dadku sumad gaar ah waxa u geynina ay ku qoran tahayna ma leh waxaad moodaa midabta koor inuu saaran yahay degmada Xeraale wasaaradda caafimaadka dhibaato weyn baan u aragnaa midaas ay samaynayso waxaan leenahay ilaahay ka baqa oo dadka u soo gurmada wasaaradda caafimaadka oo Galmudug tan federaalku ayadayba nagu halaynaysaa oo nagama warqabto haddaan qaylo dhaantanada gaarsiinaynaa dadweynaha Xeraale waxaan leenahay haddii aad weydo cid ku soo gurmata waa wax ku talagal la yiraahdaa la sameeyaa fasaxa ardada ayaga cudurka isku tagaas ku keenayo oo ku soo qaadayo ardada kala fasaxa inta xal wanaagsan la gaarayo cudurkan sil uu noqonayo fasaxaan idin leenahay cidii diida oo inay wax fasaxda diida oo inay afxirka xiran weyday diida waxaan leenahay waxaan ku amarnay hadda taliyihii boolisku waa ila fadhiyaa waxaan ku amarnay in la xiro oo tallaabo sharci laga qaado waxaan ka codsanaynaa hay'adaha samafalka caafimaadka heer gobol heer federaal waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah in ay naga soo gaarsiiyaan caafimaadka oo ay soo gaaraan degmada Xeraale oo aan hadda ka hor waxba ka soo gaarin waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah inay u soo gaaraan ilaa 15 qof oo hadda dhimasho waa la marayaa ilaa 20 qof waa daadsan tahay magaalada aad bay u daadsan tahay iyo taafaheeduba waxaan leenahay si degdeg ah ha nooga soo gaarto hay'adda caafimaadka dadweynaha degmada Xeraale waxaan leenahay meheradaha iyo tuksiyaasha iyo iskuulada si degdeg ah in loo xiro inta arintu ay ka gudbayso oo dhinac nooga dhacayso sida wada ognahay degmada Xeraale aynu ku sugannahay waxa la sheegayaa inay ku dhinteen ku dhawaad 15 qof oo laga yaabo lagu soo aadan inay ka sii bataan waxayna u dhimanayaan kulligood waa cudurka safmarka ah ee coronavirus awgees waxaan marka koowaad ugu baaqayaa wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo midda dowlad goboleedka Galmudugba
inay ka soo gaaraan bulshadan ku nool degmada Xeraale. waxaan ka codsanaynaa wasaaradda Galmudug iyo midda federaalkaba sida ugu dhaqsiyaha badan inay nagu yimaadaan oo cudurka ay talaalka noo keenaan. kulay waxaan filayaa inay nagala daaheen talaalkii xataa Xeraale degmada Xeraale ma taalo baaritaan sax ah oo lagu baaro lagu ogaado. sababtaas waxay keentay dadka iyadoon la ogeyn inay cudurka u baaba'aan. waxaan halkan baaq uga dirahayaa wasaaradda caafimaadka heer dawlad goboleed iyo heer federaal oo aan leeyahay dadka ku nool Xeraale ee ka tirsan reer Galmudug ee Soomaalida ah xuquuqdii iyo xaqii ay ku lahaayeen dawladooda oo ah ugu yaraan xataa adcaful iimaan oo ah xataa in la soo booqdo oo la eego dhibkooda oo xataa la kormeero oo aanay ka jirinin oo aad moodo inaanay u tirsanayn Galmudug leenahay oo dhihi karnaa aad iyo aad bay u dayacantay waxaana ay dayacay annagu Galmudug baan ka tirsanahay aan ka tirsanaanne hay-adiin u xilsaarnayd caafimaadka Galmudug wax ay u qabatay oo yar oo badan lama arko ummaduna waxay la daadsantahay cudurkan dilaaga ah oo qolo kasta halakeeyay yay u daadsan tahay baaritaan baan wax lagu baaraan la arag talaal baan la arag oxygen wax looga soo qaadaan la arag. si kastaba ha noqotee ma jirto xarun caafimaad oo lagula tacaalo caabuqa COVID-19 ama meel lagu karantiilo bukaanada laga helo COVID-19 iyadoo ay jiraan dad fara badan ay u geeriyooday naqaska oo ku xirma oxygen la'aan awgeed. Xuseen Cali Xuseen, Soyaal TV, degmada Xeraale.